markuu sidaa wax badan ahaana kadib markii uu ayaa waxaa qabsaday xeerada ee meeshii uu ku xidhnaa ciidankii ONLF macawis yar isagoo qaawan oo macawis yar ran ayuu yarkii dibadda carar ku baxsaday sidaa darteed ayaa qoys reeradii qaraabada ay yihiin ayaa baabuur sidii lagu soo kaxeeyey wiilkii calaa kulli xaal noolku yimid wuxuu soo cararaba haddana 3 sano ku nool yahay intaas UDI-dii waxba way ka qaban weyday ama way u qaban weyday wayna rumaysan waayeen waxaana maxkamadiisa ay dhacaysaa 16 January mar labaad ku celiye waxaana kasoo qayb geli doona dad badan oo khubro ah oo ka warrami doona xaalka ogaadeen sida dhabta ah ee jirta taas kuwaas oo ka kala iman doona sida Sweden, Denmark, dad telefoon kusoo hadli doona oo Nairobi oo ka sheekeyn doona xaaladda dhabta ah ee ka jirta ogaadeen wuxuuna mar walba ku faraxsan yahay in uu taageero wiilka yar sababta waa wiil diinta ku fiican buu yiri waa wiil runta aad ugu adag oo ku aanan ahayn dadkan alaabka iyo dadkan meelaha laakiin wuxuu sheegay ay run yihiin marka inay rumaystaan ayna sidaas ayna ku hawshiisii lagu gabayaan ayaan u faraxsanahay ayuu yiri takaleeto waxa weeyaan qofku markuu dhib ka soo cararo waxa weeye wuxuu u baahan yahay meel uu ku hoydo ama uu ku nasto oo ka ilowsiisa dhibkii iyo culayskii iyo wixii haddii uu waayo qofku aad bay ugu adkaanaysaa mar walba ood meel timaadana waxaa muhiima in uu qofku bini aadamkii la ilaaliyo bini aadamnimada dadnimada iyo qofku bini aadamka dhibka uu ka soo cararay marka hope waxaan rajeynayaa in ay arrintaas ku guuleysto ood iyo intii la shaqeynaysaba erin iyo wiilka ayaan sharci la siiyo insha allahu tacaala